daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay dagaal mar kale ka qarxay goor dhaweed magaalada Dhusamareb kadib markii xalay halkaas dagaal culus oo ka dhacay isla markaasina u dhaxeeyay ahlu sunna wal jamaa iyo ciidamada Qoor Qoor ee dawladda dhankeeda ah dagaal culus oo ka qarxay maanta masaacad ka hor magaalada Dhusamareb ayaa waxaa la sheegayaa in oo la geliyay xerada NG isla markaasina NG oo isdifaacayso xerada NG oo xerada ugu weyn ahlu sunna wal jamaa waxaana laga yaabaa halkaas in lagu kala baxo wararka naga soo gaaray Dhusamareb caasimada maamulka galmudug ayaa sheegaya in maamulka oo waxa la yiri in maamulkaasi labada dhinac ka soo horjeedo oo ka wada qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa oo hubeysan dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa meel u dhow xarunta NG ee hoyga u ah madaxda sarsare ee ahlu sunna wal jamaa waxaana goobjoogayaal ay ku sugan Dhusamareb ay sheegayaan in mar qura jawiga magaalada uu isbedelay mararka qaarna laga maqlayo jug culus isla markaasina hubka noocyadiisa kala duwan oo aad u culus la isku adeegsanayo xaalad kacsan ayaa iminka ka jirta magaalada Dhusamareb waxaana aaga dagaalka uu ka socdo xarunta NG ee madaxtooyada galmudug ay saaka ilaa iyo xalay ka barakaceen dadkii shacabka ahaa aagaasi ka agdawaa ganacsiga guryaha dhammaan waa ay ka barakaceen maadaama hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo waxaa la isdhaafsanayaa hubka culus oo ay ku jiraan hoobiyayaasha la sheegay inay ahlu sunna ku garaacayso hoyga madaxweynaha dawladda la aqoonsan yahay ee maamulka galmudug ee nik lagu magacaabo Axmed Qoor Qoor hoobiyaashaas oo ka imaanaya dhanka xarunta NG ee ahlu sunna wal jamaa waana loo baqaa master Qoor Qoor in halkaas hoobiyaashaasi ay gudaha madaxtooyada ugu galaan isla markaasina wax yeelay ka soo gaarto iska hor imaadkan ayaa daba socda dagaal xalay ka dhacay isla goobta lagu dagaalamay kadib markii ay israasaaseen xoogan dhex martay ciidamo ka wada tirsan booliska dawladda iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa inta la xaqiijiyay dagaalkaasi waxa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada harmacad ilaa waxa la yiri ciidamada harmacad ee waardiyo Qoor Qoor isla markaasina ammaanka dhanka dawladda la aqoonsan yahay ee dawladda federaalka Soomaaliya aqoonsan tahay Qoor Qoor halkaasi uu ku dhintay sidoo kale ilo wareedyo sheegaya ayaa la sheegayaa in dhanka ahlu sunna wal jamaa oo soo gaaray khasaaro si kastaba haatee wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan ilaa imanka dagaalka waa uu socoyaa wixii ku soo kordha dib kala soco xaaladda Dhusamareb oo la doonayo ama la leeyahay 24 saac soo socda waa lagu kala baxaya ama ahlu sunna ayaa la wareegayso Dhusamareb ama Qoor Qoor ayaa u haraya dhinaca kale Kenya oo isku diyaarinaysa duulaan dagaal oo ay ku qaado gobolka Gado iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo digniin culus u dirtay markaasna wararkii ugu dambeeyay saaka ayaa soo baxaya cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada beled xawo ee gobolka Gado isla markaasina duleedka degmadaasi ay fariisina ka sameysteen ciidamada cusub oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ee Daraawiishta isla markaasina ay soo hore u soo galbiyeen ama ay soo marsiyeen ciidamada Kenyaanka ah meelo badan oo ay shabaabka haystaan isla markaasina taasi sharci darro lagu tilmaamay ciidamada hubeysan ee gaadiidka dagaalka ayaa ka soo buux dhaafiyay degmada ka soo tagay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose kuwaasi oo maanta gaaray degmada beled xawo ee gobolkaasi ayaa dhaqaaqyo ciidan ka wada duleedka beled xawo sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan degmadaasi xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa kulan dhiirigelin ah maanta la qaatay ciidamadaasi cusub ee Jubbaland ay geysay gobolka Gado kuwaasi oo ciidamadan kula dardaarmay inay gacan adag ku qabtaan ammaanka degmadaasi ama deegaanada dhaca xuduudda Soomaaliya ee Kenya gobolkaasi Gado ugu weyn tahay beled xawo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in ciidanka soo gaaray duleedka magaalada beled xawo ay yihiin kuwa dhawaan ku dhawaad 50 askari oo lagu soo qaaday gaadiidka ay ka mid yihiin hal gaari oo dagaal ah waxa uuna xusay inaysan awood u lahayn qaadida weerar ay kula wareegaan magaalada beled xawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska harmacad iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee militariga gudoomiyaha degmadaasi ayaa gudoomiye ku-xigeenka oo sii hadlayay ayaa sheegay in dawladda Kenya ay gacan ka geysatay xiisadda iyo abaabulka dagaal ee laga dareemayo gobolka Gado asagoo xaqiijiyay in ciidanka Kenya ay gobolka Jubbada Hoose ay ka soo galbiyeen ciidamada Jubbaland isla markaasina ay soo marsiyeen deegaano badan oo ay al-shabaab maamusho oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo Gado arintaasi oo ku tilmaamay fal ka hor imaanaya saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Kenya isla markaasina sharciga u yaalay ay gabi ahaanba jabisay dalkaasi Kenya sargaalkan oo hadlayay maamulka gobolka Gado ayaa sheegay in aysan dawladda dhexe ka haysan amar uga hortagaan ciidanka Jubbaland waxaana xusay in ciidamada dawladda federaalka ay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada beled xawo uuna nasiib darro ku tilmaamay falalka ka socda dhanka dawladda Kenya isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya la doonaya inay tallaabo cad ay ka qaadato
wararka ayaa sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu amar ku bixiyay in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo maamulka degmada Balad Xaawo isla markaasina ciidankiisa ay la wareegaan gacan ku haynta degmadaasi oo muhiim u ah isku socodka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya maadaama halkaasi dana waaweyn ugu xiran tahay madaxweyne Axmed Madoobe sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayr iyo madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi nafta ag dhigay isla markaasina ciidamo aad u tababaran geeyay dhinaca kale bankiga adduunka oo soo saaray war cusub oo ka farxiyay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina 30 sano kadib arrin cusub soo celiyay bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dowladda Soomaaliya la lahayd bankiga adduunka 30 sano kadib bankiga adduunka waxa uu sheegay in tani ay ka dhigan tahay inay fursad u furto dowladda Soomaaliya fursadaasi oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqaha uu bixiyo bankiga adduunka iyo inay wada shaqayn la lahaato dhammaan laamaha bankiga adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maalgashto gacantana waxaa gacanna looga geysto deganaanshaha iyo horumarka wadanka isla markaasina deeqaha oo bixiyo bankigaasi ay Soomaaliya toos u hesho Soomaaliya ayaa ka rajo qabto in laga qafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyadoona loo eegayo deymaha laga qafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay barnaamijkaasi oo loo soo gudbiyay macnaha oo loo soo gaabiyo HIBIC ayaa lidii tallaabada bankiga adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay-adaha lacagta adduunka ee IMF ay iyaguna sheegeen inay heshay yabo ku filan inay hay-addu dhinaceeda deymaha ka qafiifiso Soomaaliya IMF waxay sheegtay inay yaboha oo dhan 334 milyan ka heshay in ka badan 100 xubnood ama 100 dawladood oo ka tirsan caalamka bankiga adduunka waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah waxa uuna sheegay in war-saxaafadeedka bankiga adduunka inay qayb ka qaateen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan 250 milyan oo dollarka Mareykanka oo deeq hordhac ah si loo dejiyo horumarka wadanka uu sameeyo ee dhinaca isbedelka iyo bixinta adeegyada bankiga adduunka waxa uu sheegay in Soomaaliya ka faa'iideysan doonto deyn cafinta ay helayso marka la raaco deymaha laga qafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay deymaha la filayo in badankooda laga qafiifiyo Soomaaliya ayaa ah 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si kastaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay arrintan isla markaasina ku sheegtay mid dalka uu hore ugu soconayo maadaama dalka Soomaaliya uu yahay dalka ugu faqiirsan isla markaasina hadda soo kabanayo bankiga adduunka ayaa sidoo kale sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan Soomaaliya maadaama bankiga oo dawladaha faqiirka ah uu maalgeliyo isla markaasina deeqaha ay bixiyaan ay dhinac ka heli doonaan dhinaca kale dalkii labaad ee Afrika oo laga helay kiiskii ugu horeeyay ee coronaviruska dalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Nigeria ayaa lagu arkay qofkii ugu horeeyay oo ku dhacay cudurka coronavirus isla markaasina noqonaya dalkii labaad ee Afrikaan ah oo cudurkaasi laga dhaxlo bukaankan ayaa ka soo jeeda dalka Talyaaniga wuxuuna ka shaqeynayaa dalka Nigeria isagoo Talyaaniga ka soo laabtay 25kii bishan isla markaasina mar allaala markii uu soo degay laga helay mas'uuliyiinta waxay sheegeen inay qofka uu ku dhacay cudurkan corona oo hadda lagu daaweynayo isbitaalka ku yaala magaalada Lagos isla markaasina xaaladiisa ay wanaagsan tahay dowladda Nigeria ayaa sheegtay in diyaar garowga buuxa ay sameysay si looga hortago cudurka waxaana kamid ah xarunta xaaladda degdega ah isla markaasina dad badan hadii soo ritaan si halkaas loo dhigo waxay mas'uuliyiinta bilaabeen inay baaraan rakaabka ka imaanaya dalalka uu saameeyay coronaviruska isla markaasina dibadda ah in ka badan 80,000 oo qof ayaa ku geeriyootay cudurkan coronavirus waxaana ku faafay ilaa 40 dal waxaana Nigeria ay noqonaysaa dalkii labaad ee qaaradda Afrika ee laga helo cudurkani waxaana qof qaba cudurkani loogu arkay dalka Masar sidoo kale si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurkani ayaa adduunka ku faafay isla markaasina meel kasta ayuu gaaray si kastaba ha ahaatee dawladaha Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa iminka la taala dhacaya maadaama halkaasi dad badan ay ku dhaceen isla markaasina dad aad u fara badan oo ilaa 12 halkaas oo ku geeriyoodeen si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa ilaa iminka la soo saarin daawadiisa maadaama la yahay daawadiisa khubarada caafimaadka adduunka ayaa iminka u fadhiya mar kasta u fadhiya sidii u heli lahaayeen daawadii lagu xakameyn lahaa cudurkani